حمزة waxaan dhihi lahaa xilka iska xasilo waxaan ka aaminsanahay qofkii Soomaali soo maro qofka ugu xumaa ee mas'uul noqdo bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasantiin Ra'iisul Xamse horta waa makhluuq oo waa sax laakiin waxaan isleeyahay waa ninka bini aadan oo ugu macquulsan inta Ra'iisul Soomaali soo martay hadaan Ra'iisul kale weydiinaysid Ra'iisul waxa waaye shaqo fiican buu hayaa dalka shaqo fiican u hayaa dadkana shaqo fiican u hayaa وانا نن مادي يدين لبضب كدسن مركو أمد الصوماليات وحنو باقيا هي مدحوينها هي الدولة ده هركذا كلا دوان إن الرسول الله شقيان شغفي عنه هايا أنا كرو أدعينا إلينا كوجوليان لنا الكورن الوزراء حمزة حكام زنتين وندوه هاي رئيس الوزراء حمزة أحمد مقعيق وصاحن جمال أحمد علي رئيس الوزراء شغفي عن بوته شغفي سفي عن هوسي وجود قالوا شغفي سفي عن هوته ساسا يلهي بدل ما دللي ولا وحما قبلين او وحما ترين maxaa ka imsan والله لو ودن بان kala joogna ani dhinacaas wali ma aadin laakiin inuu shaqo fiican u hayo waan ogahay soo dhawow magacaas taxna sheeg aniga waxa la yiraahdaa aadan yaaqub dhabar ay bal xamse cabdi barre ka faalo wax positive negative wallahi wax oo كل يتدان ده كرا حمزة وحاسي وقبته مجرته كل يتان تلذي وحيان ليد وضن كده بدل ما كجرا ما دام عن ولي سومالي أتانا أركين لكن كل يتصيد ورك وسو جاريان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحلي هذا محمد على عاشور وحانشوا نيروبي حد ويديس حمزة عبد البر حكى حمزة عبد البر والله وحان كأمسنا هاي qofkii Soomaali soo maro qofka ugu xumaa ee mas'uul noqdo taasa ka amisana sababe Ra'iisul Wasaare wanaaga maanta uu sameeyo asaga iyo dawladda uu Ra'iisul Wasaaraha u yahay xukuumaddiisa wax u tari lahayd laakiin maanta Soomaali meel ay joogtaba waxa la aaminsan yahay حمزة عبد البر إنه يهي قفك أقول لي تي سومالي سومر رئيس الوزراء كنقول. إيش لا أنا قرابتي أنا كايرسا. ما هي لبضة بقرابنا. صح. اسكمل بيجوان. أيه. لبضة إنه ولا بنو المعذرة معها أساس معها. صح. وكا. اسكمل بيجوان لبضة. يا. والله يدور ما يستهدي وأنفشل. سومالي وحأوسه سعته هدي إلهي وبتبادنين سيدي كده على وكلا باكستان. الشباب اللي وريك دوت حمر. هدي حمزة يا حسن سيدنا يكودان يكسي ودان سيدا سنة بسناني أو ما ستي حمزة waxaan dhihi lahaa xilka iska xasilo sababtu waxay tahay ra'iisul wasaare waxa la rabaa ninka madaxda ah inuu u dul qaato wax kasta oo ku yimaado mas'uuliyad badan baa saaran wadan dhan buu u yahay ra'iisul wasaare maamul goboleedka inuu la dagaalamo oo sharaf ugu jirto ma jirto kulli tani waxay ila tahay inuu maamul goboleedyada uu si fiican u wada shaqeeyo maadaama beel hoos andana uu hoos u sii galay kulli taladeedu waxay tahay waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaaraha haddii shaqada si fiican u qabsanayna iska casil xilka. Assalaamu calaykum.